Lo yello ay fogsanayo wabadane dayaci wakaso bilane bishari wabilghayr. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على علمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. dhalinyaro sab iyo samaale ayay weydiinta inta badan maanta barnaamijkeena zoomka lagu soo jeediyey. sab iyo samaale su-aalaha lee weydiiyey waxaa ka mid ahaa macalin waxaad noo sharaxdaa guri iyo galti. guri iyo galti, guri waxa weeyaan dadka degaan oo maguurto ah oo bimacnaa beeraley ah. galti waxaa la yidhaahdaa nimanka xoolo dhaqatada ah ee socodka ku mara ayaa la yidhaahdaa galti. marka ereyga macnaha ujeedadiisa weyneed taas bay ahayd oo markii hore lagu salaysiiyey. haddii faahfaahin kale aa u baahnaatid sida iminka aad u soo qortay weydiinta waad soo qori kartaa insha allah. macalin waxaa la leeyahay halkan nebi aadan calayhi salaam wuxuu joogi jiray baa la yidhi dalka hindiya, uuna ku aasan yahay dalka hindiya. aadam calayhi salaam hindiya iyo meeshuu joogay iyo meeshuu ku aasaya intaana gelin horta wax yar aan faahfaahin yar iska siino. berigii hore dhulka waxaa la odhan jiray hindustan. dhulkaasi iminka indiya iyo bakistan iyo bangaladesh iyo afghanistan iyo heeristan loo kala baxshay oo magacyadaasi loo bixiyey. waxaa la odhan jiray hindustan iyo bakistan baa la odhan jiray. marka labadaa un bay ahaayeen oo waxa kale ay ku wada hoos jiraan. afghanistan hadday noqon lahayd, bangaladesh hadday noqon lahayd, labadaasi ay ku kala jireen. nebi aadan calayhi salaam wuxuu ku geeriyooday sri lanka, buur u dhow caasimadeedu u dhow ayuu ku geeriyooday. halkaas buuna ku aasan yahay oo sanad waliba loogu tagaa oo lagu soo siyaartaa. sri lanka marka berigii hore waxaa la odhan jiray ceylon baa la odhan jiray, laakiin caasimadda magaceedii ma bedelmino, waa isla colombogii shalay ay ahayd un bay tahay weli. sri lanka marka nafsadeedu waxay ka mid ahaan jirtay hindustanka ayay ka mid ahayd. xataa aimada islaamka qaar baa soo qaata nebi aadan inuu ku aasan yahay hindustan wey maahan, indiya ma aha. hindustan berigaasaa la wada oran jiray, waana sri lanka halkuu ku aasan yahay. halkii uu ku soo degay marka ee aadanaha uu ka bilowday. caddeymaha d n a-ga intaynan gelin bal marka hore caddeymo kale oo dunida weli yaalaa aan ka hadalno. aan isku dayo inaan maaragtay idiin soo bandhigo. maxaa ka mid ahaa? waxaa jirtay reer galbeedka sirtan inuu aadan halkan ku soo degay way haysteen, oo soomaaliya ku soo degay way haysteen. ama raadadkii ha ku arkaan, buurheyba ha ku arkaan, ama raadadkii qadiimiga kale ahaa ee laasgeel iyo dhulkaa yiilay, dhagax kure iyo dhagax nabagelay iyo ceergaaba iyo dhulkaa yiilay ha arkaan, ama meelyow kale ha arkeen. balse aadan inuu ku soo degay dhulkan meesha loo yaqaano buur heybe, berigii horena buur eyle la odhan jiray. heybahana aan sheegnay inuu ahaa boqor ahaa, balse iminka magacii inuu kusoo haray keliya jalxadaha la sameeyey, dheriga iyo ashuunka baalka la yidhaahdo ee la sameeyey iyo arrimahaasu kusoo haray magacii. waxaa caddeymaha marka 1993 waxaa halkan yimid soomaaliya, dalka la yidhaahda yimid george bushkii odayga ahaa ee maaha kii ciraaq ku duulay maaha. george bush madaxweynihii dalka maraykanka ayuu ahaa berigaas. wuxuu soo booqday ciidamadii maraykanka ahaa ee 30,000 ahaa ee la keenay 1992
bilihii dhammaadka November iyo December joogay dalkan ayuu soo booqday. laba meelood buu ka khudbeeyey, laba goobood buu ka khudbeeyey. goob waxay ahayd airboortka bay ahayd, wuxuu u khudbeeyey ciidamadiis buu u khudbeeyey. goobta labaad waxay ahayd magaalada Baydhabo. haddaba magaalada Baydhabo markuu tegey oo khudbadiisa waxaa ku jirtay oo ku bilaabay, waxaan ku faraxsanahay inaan imid dhulkii aadanaha oo dhan ka soo faracmay inaan imid ayaan aad ugu faraxsanahay buu yidhi. meel dhigataa hayso. iyo madax kaloo fara badan oo sidaasi si lamida sheegeen way jirtaa ilaa 60-nadii. sirtan kolba in baa soo fakan jirtay, kolba in baa soo baxsan jirtay, kolba in baa soo baxsan jirtay. marka ilaa DNA-gii laga helo oo dunida markii dambe shaaca looga dhigo, loo sheego oo la yidhaahdo asalkii waa halkan la yidhaahdo. taariikhdina markaas baa wax badan bedelmay, wax badan ayaa ka bedelmay. taariikhdii ahayd Mesopotamia baa laga yimid, Masar baa laga yimid, maxay baa laga yimid, qaar baa xataa ku odhanaya India laga yimid. lagama imaan, dunidii baaba halkan ka askumantay oo ka faaftay. weydiinta kale aanu gudubna marka. ardaygan wuxuu yidhi, waa gabar raalli noqda, waxay tiri daarood waa Yemen, waa carab ee ma ahan Soomaali ma aha. abtirsiimo waa la samaysan karaa. waxaan ka soo sheekaynay cashirkayna ugu horeeyey sab iyo samaale. Soomaali keliya dhulkan in yar dad yar oo waxaa ku milan ama ha ahaadeen carab, ha ahaadeen Yemen ha ka soo jeedaan, ama Ciraaq ha ka soo jeedaan, ama meelyow kale ha ka soo jeedeen, ama Bershi ha ka soo jeedeen, ama Yahuud ha ka soo jeedeen. dadyow baa jiro oo ku milan Soomaalida dhexdeeda, ku milan qabaa'iladeeda ku milan. qaar baa jira noqday qabiil kaamil ee noqday, macnaha ilaa iyo xilligii faraacinada ay soo faracmayeen, ay soo kordhayd maaragtay ubadkii la dhalay, ubadkiisa kale qabiil ku noqday, sidaa ku noqday. laakiin DNA-ga Soomaalida waa isku wada mid, ama dir ahow, ama daarood ahow, ama sab ahow, ama samaalo ahow. DNA isku hal DNA un baan nahay. inta yar ee lagu sheegayo waa intii yareed ee nagu soo milantay. waxa weeyaan waa intii yareed ee nagu soo milantay. insha allah waxa weeyaan haddii aad weydiinta aad ku qancin weli waad soo qori kartaa, sida iminkaba aad u soo qortay. Soomaalida sab iyo samaale waan ka sheekaynay. waxa weeyaan haddii maaragtay meelyo mugdi kaa galo waad soo weydiin kartaayo, commentiga kusoo qor. xataa haddii aadan ka gaarin fasalka aad uga xishootid ama aad istiraahadid waqti lama hayo, waa soo qori kartaa. waa mahadsan tahay. isla su-aashii oo kale lagu soo celiyay, sideen asal u noqonay. Tanzania ayaa laga sheegayay la lahaa, la yidhi, qiila waqaala ayay ahayd. la yidhi iyo la lahaa ma ahan wax war sugan ma aha. aaba la lahaa, sidaasaaba la lahaa, maxaa sidaan ka dhigay, sidaasaa la yidhi, maxaa sidaa yeelay. waxaa la yidhi ayaga afkooda aayad qur-aan maahano, qur-aanka ayaan bedelmaynin. laakiinse inaga waxa weeye waxaa inaga dhigay, asalkii naga dhigay kolkii la helay DNA-yada dunida, kolkii la helay ee la baaray, ay kusoo wada biyushubteen halkan Soomaaliya, ay kusoo wada biyushubteen. kolkaa baa la ogaaday inaynu nahay asalkii. markaa unbaa kow haddana baaris kale la bilaabay, ilaa haddana markii dambe la helay lafihii dunida ugu qadiimsanaa ee laga helay boorama agteeda meel ah laga helay, iyo waxyaalo kaloo fara badan oo xataa xilligii maaragtay dhagaxa la isticmaali jiray, stone age loo yaqiinay. yani aalaad qalab maaragtay laga dhigi jiray qalabkii dhagaxa, sida maaragtay faaskoo kale u samaysan, oo siduu maaragtay maxaa la yidhaahdaa u nabaad guurayay, ee dabaysha ugu dhacaysay, roobabka wax walba ugu dhacay,
yaraaday waxyaalo badan waa la helay laasgeel taariikh fog baa taalla ceergaabo sidaasi lamida dhagax nabadgel ama dhagax kure meesha loo yaqaana waa sidaasi lamida taariikh aada u ballaaran baa taalla gacan libaax kadaalika iyo buuro kale oo aan soo sheegay sida mabla oo kale buurtii ugul oo kale aan soo sheegay dhagax buur qabri dahare dhulkaasi aan ka soo sheekeeyey gebi taariikh baa taal asal ee nool weli aan dihan aan weli lala soo bixin wax kale oo ka fara badan way yaalaan macdin baa taala xoolo dhan baa yaala hanti dhan baa taala annagana gacantaan horsannaa soo maaha aqoonta ha shaqayso aqoonta ha shaqayso insha allah aqoonta si cilmiyeysan ha u shaqayso insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu